wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac ay wehelinayaan duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Taarwale iyo barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyo xildhibaan Axmed Wali oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay wado 30 kiiloomitir oo isku xidhaysa deegaanka Kabaalka Xargage iyo magaalada Laascaanood waxaana wadadani dhismaheeda ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana isla maantaba la bilaabay dhismaha wadadaasi wadadani ayaa lagu magac daray wadada nabadda waxayna dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mas'uuliyiinta dhammaan halkaasi ka hadashay ayaa si wada jir ah ugu mahad celisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ballan qaaday dhismaha wadadani waxayna ka mahadnaqeen waxqabadyada ka socda gobolka Sool oo meel fiican maraya maayarka degmada Laascaanood barasaabka gobolka Sool wasiir ku-xigeenka gaadiidka xildhibaan Axmed Wali ayaa halkaasi hadalka iskaga dambeeyay maanta farxad waxaan u ahaa in halkan oo ah Xargage aan maanta ka dhagax dhigno wado 30 kiiloomitir oo jilcada oo maalgelinta ku baxaysa ay bixinayso xukuumadda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay waa waxqabadkii xukuumadda kulmiye waxay qabanayaan ma aha dhagax beero meel la dhigayo waa wax xaqiiqa maanta waxa idin muuqdaa runtii in aan si cad maanta loo furay wadadii Kabaalka Xargage wadada kiiloomitirkeedu ka kooban 3 kiiloomitir oo talaabo hore loo qaaday waxaan leeyahay ishii ku kaaso Soomaalidu waxa ku baabahdaa waxa weeye dacwada jibro ku gooyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo mahad celinayna arrintaas isaga go'aansaday go'aanka gaaray madaxweynuhu ilaahay mahadi maanta xilligan in gobolka Sool ku shaqeynayo yar iyo weyn mas'uuliyiintoodii ay cadceeda u taagan yihiin baahida wadada ay u qabaan aawadeed dhagaxan la dhigay wadada Xargage oo Kabaalka tagaysa ilaa 10 kiiloomitir waa sakankii laakiin shirkadan dhagaxa halkan loo dhigay ee wasiirku uu dhagax dhigayo ari cadeeyana wayada berita la dhigaya oo ay shaqada ka bilaabaysaa ta ku xigtaana waa tan taari cadeeyaa ka horeyso wasaaradda madaxweynuhu soo gudbiyay mar hore wasaaradda maaliyadduna ay soo saxiixday tanna ay ku xijinayaan mas'uuliyiintii halkan waqtiga doorada ee gobolka weyn dadaaliyay dadka baahida weyn loo qabay iyo socodka dadka meesha degay iyo inta ku heeraan inay wax ka qabtaan ay waa dhagax dhig bariyan adeer waxaan joogay gobolka 7 cishaan joogay 7 cisho wax qabad baan ku dhex jiray marka waxaan moodaa in wax qabadkii bariga u bilowday maadaama in badan la lahaa bariga wax ma soo gaaraan hadeerta 7 cishaan joogayba waxbaan dhagax dhigeynay meel baan u fureynay qalin jabin baan hadeer ka soo baxnay alxamdulillah marka waxaan leeyahay arkeen waxaan arkeen yeena noqon inay dhinac wax ka eegaan nabadgelyadana inoo ilaaliya oo nabadgelyadu howlaha ku gaari karaa wax qabadka Maxamed Guray Saab TV Laascaanood